بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا قار كميدا الذي مرحوم عبد الله فارح محمد وهذين كي سدح يلا واتنك ديزمبر أي كوح أرحم الله وياله ودبلي كدلين دقمده هذا قارهان حافظ البركة وحنا إن لو ذاقنا شعب الصوماليين iyo mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya dhacdadii foosha xumeed ee marxuumka lagu dilay sida ay u dhacday. Marxuum Cabdullaahi Faarax Maxamed wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon, wuxuu ahaa uu lahaa company logistic ah waxay muran soo jiitay muddo uu dhexmaray asaga iyo taliyaha guutada koobaad 12 Abriil oo lagu magacaabo General Xasan Jaamici murankaasoo dhowr mar ay galeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xasanna oo ugu hanjabay inuu Cabdullaahi dili doono noloshana uu dhaafin doono 23kii December habeenkii bacda salaada maghrib kadib Cabdullaahi waxa uu yimid sargaal ciidan oo lagu magacaabo Dhamme Cabdi Jaamac oo uu soo diray Xasan Jaamici taasoon hayno dhammaan cadeymaheedii Cabdullaahi iyo Cabdi waxay iska raaceen isgoyska Soobe muddo 10 daqiiqo kadibna Cabdi wuxuu ku dilay Cabdullaahi degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Albarako waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno arintaas in maalin walba dadkii Soomaaliyeed annaga haddaan nahay eheladii iyo qaraabadii Cabdullaahi Faarax Cabdullaahi waa dhintay soona noqoma laakiin waxaan ognahay maalin walba in dad Soomaaliyeed oo qiimo leh dhalinyaro Soomaaliyeed oo qiimo leh dadkii haldoorka bulshada ahay lagu dilo magaca dawladda Soomaaliyeed ayadoo la wato shaatigii dawladda ciidankii dawladda iyo qoryihii dawladda waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno in dhacdada sidaas oo foosha xun aysan geysan shabaab ee ay geysteen rag ku labisan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dalkooda saraakiil ka ah la yaqaano waxaan ka walwalsanahay maalin walba in dadkii haldoorka ah ee bulshada Soomaaliyeed mid loo dilo ayadoo shaatiyo kale loo adeegsana waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta dawladda aadna uga xunnahay in Xasan oo maanta soo haysta ciidankii dawladda iyo hubkii dawladda oo banaankiisa wareega inkastoo aan ugu mahad celinayno dawladda Soomaaliya in la soo qabtay ninkii Dhamme Cabdi oo ahaa ninkii geystay dilka waxaa kale oo waliba aan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago General Xasan Jaamici oo ahaa taliyaha guutada koobaad qaybta 12 Abriil in uu ilaa maalintii la soo qabtay Dhamme Cabdi Jaamac ilaa maanta uu taagan yahay CID oo una rabo inuu sii daayo gacan ku dhiglihii dilay Cabdullaahi Faarax asoo isticmaala awood dawladeed hub dawladeed iyo magac dawladeed si uu asagu uga badbaado uu soo gelin raadka dhibaatadii uu geystay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dhammaan Cabdullaahi meedkiisii inuu wali banaanka yaalo oo aan la duugin aanana diyaar u ahayn in la duugo inta ay dhacay in Cabdullaahi cadaalad helo